wafdi hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid oo ka qayb ahiin wasiirada amniga Galmudug iyo ciidamada qaybta 12aad ayaa waxa ay xalay ku hoydeen deegaanka Bulacle oo hoos tagta degmada Ceelbuur halkaas oo kamid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa sheegay inuu bilaabay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab ee looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Galmudug iyo ciidamada Galmudug ay qayb ka qaadan doonaan howlgallada sida Al-Shabaab uga saarayaan deegaanada ay dadka ku dhibaateeyaan iyo saldhigyada ay halkaas ku leeyihiin. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Axmed Macalin Fiiqi ayaa dhankiisa sheegay in deegaanka Bulacle ay u tageen sidii loo bilaabi lahaa dagaal ka dhan ah Al-Shabaab si looga saaro deegaanada ay weli kaga sugan yihiin halkaasi. Waxa uu sheegay in Al-Shabaab aysan awood weyn ku lahayn deegaanada Galmudug, hase yeeshee ciidamada dowladda Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan dhibaatooyinka ay geysanayaan. Shalay ayaa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ka geysteen deegaanka Shabeello oo qiyaastii 25 kiiloomitir dhanka bari kaga beegan deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug.